hadlayna waa ninka saldhigga dhexe haysta anaga habar jeclaa ده واحد ترى على ودن كوحبك وما له هذي ده دريرنا دي مرنا كنت دفاعي ما إنه رجع يقول مرن مايو وده خطير تساوي قبل حماية مرنا عقول تاجون تنارود في ماي صار نقول بوحنا توجنا يصدق ده كنت راه برجع على ده أيات قصة ميرتها ما أنتي إيدي هاد سنتي يبركي أي واحد تبي قوار عسى هلقا سيدا وادينا وحي كهذا الشيء عيون بدن إيو أهل قاعدة فر بدن يهنشبات ay leedahay anigu kuma sabrin yaani waxa weeyaan de ninkii la ii dilay macna ujeedo mana samrayo waxayna ujeedada markaa ka hadlaysaa cid kale oo aan dilo baan doonayaa lama aanan hadlin suuqna ma noqon gurigeegan hoosta ka soo xiranay aruurteedu aan soo xareysanay halkaas aan isku galay waanu dacwoonadna saldhiga ayaan rabuud u gudbinay waanu tagnay hadana waxaanu niri saasa dhacdo ammaan baan laanahay ammaankan lagu dadaalo annagu cidna waxba uma nankaysan waxa weeyaan cid wax nagu leeyahay ma jirto sidaas hadana nala weerarsan yahay de waxa laga qabto ka bacdi dhowr cishaan cilciliyay waan noqonay maalintii ugu dambeysay xaaladda ay ahayd iidu laba cisho bay hadana xaaladan dambe ee dagaalka ay u dhacay gurigiiba soo weerartay annagu markaa saldhiga ka nimi saldhigii isku taxalluujin inuu wixii wax ka qabto ama uu dadaalo oo uu doono inuu soo qabto oo yiraahdo maxaa dadkan ku leedihiin kumu dadaalin anagu un basi socono marba waxa weeyaan tagayno ku noqonayna marba wax sidano wax de aanan de markii aan qancin oo waxbana lagu qaban ayay ahay ka bacdi markii aan saldhigii ka nimi oo nala ballamay qalabnimadii bay halkan hadana suuxi barqadii 10kii barkii meelaha ayay ka soo weerartay halkaasay dabadana dhaqayo iyo buuq iyo dhibaato ay ka dhacday halkaasay de malaha inta yar ay markii halkan albaabka de soo gasho albaabkina bir bay ka goosatay dhagax bay ku soo tuurtay dabadeedna ma aragtay de gurigii ma ugu soo gashay ee qofku markii uu gurigiisa iyo baradiisa beedkiisa lagu yimaado waa difaac wuxuu soo haduu wax iska celin karayo weyn wax iska celiyo ma aha inuu de hulaabto oo inta qarsado intaas oo biloodna inta qarsayno waan aamusnayno halkan baan iska xiriisnayno carruurtayda noo xidhnayd banaanka aan u baxaynin de gudibay noogu soo gashay gardaradii marka waan dhaqdhaqaaq de waa khasab inuu luqad dhaqdhaqaaq ka bacdi biliiskii baa meeshii yimi ka bacdi anigii rantii yaay ayaa nala xidhay waxaan lagu qoray dabeedna safayn aan jirin meeshii ayaa lagu qoray oo aan meesha ka dhicin ayaa anagii safayn laga dhigo waa taa labadii roona baa la xidhay ka bacdi reerka intii dambe labadii maalmood cashiya dambe ayaa 4-6 qof ay ka xidhan ayaa la soo xidhay sida ayay u dhacday waliina de halkii dadkii iskaga jiraan wax imaka deecad oo aan leenahay waxa talabadaas ay dawladda qaatayna ma jirto ninkan dadkiisina de banaanka iska jooga waxa ka xiran gabadhii uu qabay ee de waxaan kicisay weerarkan iyo gabadh kale oo ay walaalayihiin iyo inay dhashay 3 qof baa xiran idin kara annaka 6 qof baa xiran 6 baa xiran ardaydii caruurta aqoonta ahayd hooyadood inantii aan walaala ahayn inaan kala walaashay dhashay oo aan aagaba joogin oo qadada caruurtii sidoo geeyo markii la arkay la qabto waa la xidha marka dadkaasina halkaas wali sidii ugu jiraa wali waxa dhaqdhaqaaq oo dadkaas ka soo socda mooyee talaabo cad oo dawladdu qaaday oo ay tii war dadkan waa la weeraray oo dadkan weerar baa lagu hayay talaabaha la qaado ama dadka la soo qabto ma jirto sidaas dadkina xabsigii wali ugu wada jiraa sidaas ay waxa weeyaan de aan talaabad looga qaadin ninkii iyo dadkiisina uu banaanka ku maraya ku jiro dawladdu waxaan leeyahay mar sharcigii aniga la igu qaaday la igu xukumay la igu toogtay hal la maro hal iyagana sharciga hal la mariyo aniga sharci baa la igu xiray waa la igu toogtay waa la xukumay waxa weeyaan walaalkii waa la dilay kii la igu xukumay marta dawladdu oo waxa ka qabato oo ammaan baan la ahay ammaan baan ka doonayaa dawladda inay ammaan ii samayso oo waxa wadacad iga mariso ayaan rabaa هذا تلعب قاعد ويدو يحمانو بإيمانه وحويا دتك لو نول هو النفط كتيرته طلابة كلا القاعدتي وحل بحبل إسكعلي سوي طلابة هذا القاعد وياو تي أنا عدونا ماينو وحنا ديل ماينو وحنا رأسين ماينو ما نقع 5 كيلو سن 10 كيلو مرتبة كتير حافظ دم الدجنة ما تعالوا هالكاوير كل قسم نوقي مريا هنشبادنا ولو سقطا أيوة حبسك وتري هنشبه ليه هلا واني كل دين وملدان ولا ملدان ولا ملدان أي معلومة نهرت على قصص أنا نقول يعني هاي أنت أصلا هذا الكيف وكيف كيفين إياه أنا أنت وشافتي دوّر الشقاش هو كله ذي قاش هو شيء
maantii gurigay ku soo noqonnay gurigii oo maran baanu nini gurigii aan waxba baanu nini mood iyo maamul sidaas waxaa u maqan yahay kulana aanu dabagelin kulana aanu dacweyn inankaygiina waa weynay sidaasaa madigayagii loogu dilay kama loogu dilay labadaa naagood baana ka dambeeyey iyo ninka haddar waxaanu ka dacwoonaynaa 3 qof iyo dhashoodii baanu ka dacwoonaynaa waa ninka iyo labadaa naagood ee walaala ayaanu ka dacwoonaynaa waxaanu kaga dacwoonaynaa ammaan baanaan haysan waska aamusnay gurigayagii iyo baradayagii iyo beydkayagii iyo hugayagii iyo anfacayagii iyo alaabtaydii midna waxuma niman markaati baanu leenahay waxaasoo muslimaa joogay waxaasoo muslimaa arkayay waxaasoo muslimaa og markaati baanu leenahay ha yeeshee anagu maba soo dhacaysan moodba maanu inankayagiiba weyne moodna maanu sheegan waxna ma aanu sheegan cidna lama aanu hadlin cidna waxba ugu soo calooxmana waliba haddana umaanu qabin halka yagaasaan iskaga jiray halka yagaasaan ku fadhinay ammaan baanu lahay dadkii sameynaya guriga waa ka ammaan waayeen 10 goor baa masharad iyo eed iyo agoo lagu soo qaaday waska aamuseen salbiga la geeyay waa la og yahay gaarigooda la sawiray nagahooda la sawiray wax waliba waa jiraan markii dambena sidaa inantu ii sheegtay ayaa dhacday kabacd markaan guriga soo galayna dhacday waxaanaanu ka ammaan la'anahay ninkaasna waa la qabaa gabadhiisa waa la qabaa oo reerkiisa waa la qabaa caruurtiisa markii dambe waa taas aragayso waa xidhay 3 inan oo ardaya oo yaryar bay ga xidhan gabadhii agoonta yaryar haysatay ee caruurta wuxuu karinaysay caruurta shaqsiinaysay bay ga xidhan inantii u shaqaynaysay ee dadka ku dhawraysay ee guriga joogtay baa iga xidhan inantii kale ardayda ahayd ee caruurta iyana la shaqaynaysay baa iga xidhan wax aniga wixii baxsaday ma jiraan wax mood iyo naftayada taageerno wax noo baxsaday ma jiraan waxaanaanu مقتدك النهاية وحوية أنا قصدق الدحى وحبا نوم قرن إلى برجي ودعوني إلى برجي ودبسوني أمام بامدوني وحي نوقع قبتين مالي وأنا الأوج هاي مدحد ودا أوج حريريها أوج ككهوسية أوج ككشغيرة يدا أوج بدولي هو أوجي لا يروح نوقع قبتين مالي حتى لا أحنا أنه استلكاني أو أنه استلكاني أو يسودني دولتي dawladdu ama hana dayriso oo hanaga dadka hanaga dhexsaarto ama dawlad waxaa nooga qabanaysa anagu ma taamnahay shaqayadii nama joogo dadkeedii ma dhexnaal iyagaanu ku dhownahay deris bay noo yihiin xantayada walba waa ogyihiin xumaha waxa jooga soo gala waa ogyihiin anagu cidda ma daaqdo cidda ma maagno cidda ma hayno hadda raguma jiro laakiin dawladda waxaanu uga cabanaynaa oo dawladda aanu uga cabanaynaa oo aanu uga cabanayna ula cadhaabayna inay ama annaga tidhaha dawladda wax kuma lihiidina ka baxa reer yahow iyo dadba waanu iyo rabbiba waanu leenahay ama dadka annaga noo kooray ee 3 reer barigii hore kaaya noogu isugu tegay ana caruurta gabadha habar jecelo darkeeda iyo ninka lamaankiisa iyo dadkiisa oo dhan iyo qodatan ay hablu ka dhasheen oo ay wataan intaas waa noo heshiis annaga ragga yagii difaaca dalka ragga u jooga weeyaan gooja cadde maalin walba 500 ku dhinteen ee dalka difaacaya waa ragga yagii kuwa jeelasha ku jira ee sanad walba labada laga soo baxay tiirka la taagayana waa ragga yagii maatadayadii iyo agoomaha yagii yaryara ayaa maalin walba nalaga hoos baxaya oo la weeraraya oo saldhigyada lagu goray inankii yaray agoonka hayay 13 jirka ayaa jeelka lagu xidhay waxaanu ka cabanaynaa ninka haysta saldhiga dhexe ayaanu ka cabanaynaa kaanu ka cabanaynaa waa ninka saldhiga dhexe haysta waa ninka caruurtayada jeelka ku guray waa ninka 13 jirka yaray agoonka xidhay waa ninka ilaa iidii la dul taagnaa ee iyagoo taagan xataa ka siibtay ee ka dhuuntay caruurtii raashinka loogu dhiibay dadka xidhxidhan ayaa xataa intuu jeegada qabtay uu ku tuuray uu ku xareeyay caruur aan wadankaba joogin oo anigu dhalay anigu maan joogin
carruurtayduna may joogin carruurtaydina jeelku ku guray agoonkiibuu xidhay waxa weeyaan annaga waa naloo xoog sheegtay markii horena waa tii dawlad iyo shicib ay noo heshiiyeen ee 3 bilood gudahood inankayagii lagu toogta tiirka lagu taagay iyadoo kuwii 30 sano ka hor wax dilay ay weli ku xariisan yihiin ay jeelasha wari ku jiraan ayaa kaayagii 3 bilood qura lagu toogtay lagu dilay yaa xoog baa noo sheegtay markii hore ma iminkana xoog baa noo sheeganaya ay carruurta yareera maantida ah 3 qol ku ciriiriga ku jirta ayaa lagu haystaa oo la doonayaa in meesha laga qaxiyo taga ilaahay baa noo qoray waanu ku samirnay waanu qaadanay waxa weeyaan guriga ayagaan xidhanay xoolahayagii baa maqan hantidayadii baa maqan waanu ka samirnay wax xoolo agoomeed haddaanu maanta xitaa cafilo ma cafismayaan wax alla wax laga oo cafismaya ma jiro wax xoolo agoomeed guri maran baanu u nimi oo waxna la gubay waxna la gurtay oo albaabadii la goostay tolkood baa ilaahay u hagaajiyay in yar intii yareed baa lagu haystaa madana madaxweyne indhaha dadka kalaad ku eegtaa anaga naguma eegtid wax walba waad ogtahay TV ba daawataa oo telefoonada daawataa arag maanta na arag noo qabo wax cadaaladii aad anaga nagu xukuntay annagana wax noogu qabo cadaaladii aad anaga nagu xukuntay ee inankayga 3 bilood ku toogatay annagana wax noogu qabo